kulankii maanta ay ku yeesheen xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha golaha aqalka sare waxay ku meel mariyeen hindi sharciyeedka batroolka oo horey ugu soo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. intaysan sharciga meel marinin xubnaha golaha aqalka sare waxaa warbixin la xiriirta sharciga batroolka ay ka dhageysteen gudoomiyaha guddiga batroolka Senator Ilyas Cali Xasan. waxyaalihii wax laga bedelay qodobada soo socda ayay ku xusan yihiin. qodobka koowaad waxaa lagu kordhiyey qodobka 17aad kaas oo xarafkiisa ba oo kaas oo ka hadlayay maxaa la yiraahdaa habka muxuu ahaa sharciyada maaragtay uu ka hadlayay golaha aqalka sare iyo doorkoodii maaragtay. qodobka 3aad qeexidda ereyga baarlamaan ayaa iyadana waxaan ku kordhinay oo ama lagu daray baarlamaan wax loola jeedo taasoo aan ku qornay baarlamaan waxaa loola jeedaa labada aqal muxuu ahaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. qodobka 9aad waxaa lagu kordhiyey farqad afraad oo u qoran sidan: dhammaan heshiisyada la xiriira batroolka ee ay gashay dowladda federaalka kadib 2012 waa in la waafajiyaa nidaamka wax soo saar wadaaga production sharing agreement kaas oo ahaa kii loogu heshiiyey magaalada Baydhabo. qodobka 19aad farqadiisii labaad muddada 6 bilood waxaa laga dhigay 3 bilood. faqrada 3aad cinwaanka waxaa laga dhigay guddiga maamulka halka marka hore ay ahayd maamulka guddiga maamulka hay'adda batroolka Soomaaliyeed halka marka hore kaliya ay ku qorneed maamulka batroolka maaragtay Soomaaliyeed ama hay'adda batroolka Soomaaliyeed. qodobka 19aad faqradiisii 5aad waxaa laga dhigay faqrada 4aad halka faqrada 4aadna laga dhigay midda 5aad. qodobka 19aad faqradiisii 11aad xarafka ba iyo ta oraahda dowlad ama dowladda waxaa lagu bedelay wasiirka waxaana lagu kordhiyey kuwaas oo ay dowlad goboleedka ay khusayso u soo gudbiso wasaaradda halka xubinta kale si toos ah u soo magacaabayso wasaaradda lagana tiray kuwaas oo ay dowladdu u soo gudbiso gobolkaas. intaasi kadib xubnaha senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa aragtidooda ku biiriyay sharcigan iyo waxyaabaha ay ka qabaan. hay'adda batroolka Soomaaliyeed waa isogna senataro 6 bilood waa aniga qabaa hataa inay ku sii yar tahay. dad la soo xulaayo maamul goboleedyo soo dirsanayaan team dhan oo la sameeynayo ma sahlan hawsheeda intaan 3 bilood dhahno ee hadhowti haddana 3 bilood ku qaban waayaan oo maaragtay ay ama ay wax dadajiyaan waa ayadana waa laga fiican yahay. 6 bilood waa wixii meeshii ku habooneed oo aan isdhihi lahay 6 bilood hawshaas waa lagu qaban karaa. qodobka 24aad ee ka hadlaya heshiis caalami ah. heshiiska horta ma ahan heshiis caalami ah. adinka hadda internet aad ku wada jirtiin google gareey waxa uu yahay heshiis caalami ah saa idin tacriifinayo. heshiiska ay galayso hay'adani ay kambaniyada la galayso ma ahan caalami. wuxuu caalami noqonayaa marka wadanka Soomaaliya iyo wadan kale ay heshiis wada galayaan. hay'adani heshiisyada ay galayso waa kambaniyada private-ka. for example aniga haddii aan samaysto Samsung Petroleum Company oo aan rabo in heshiis aan la galo hay'adda ma waxaa loo baahnaanayaa in baarlamaanka Soomaaliyeed oo ii soo ogolaado. waxaa waaye marka arrintaas in dadka loo faahfaahiyo oo la fahansiiyo aad ay muhiim u tahay. mudanayaasha sharafta leh maantay in Soomaaliya loo hiiliyo oo loogu hiiliyo inay waxa iyadoo ay leedahay ay ku qaanbaxdo oo soo baxsato oo soo saarato arrintaas saasane haddaan xagga kale u laabto qodobkan inta badan waa laga hadlay waxaa la qabaa walaalahay siday u soo jeediyeen. waxa la bedelay qodobka 3aad meesha ay ku dhigan tahay qof kasta waa arkaan u maleynaya eray bixinta waxa waay qodobka 2aad waay. qodobka 3aad cutub kale iyo wax kale iyo uu ka sheekeyna ha laga saxataasayto. waxaa kaloo jirto waana idinkaga baxayaa inkastoo la daalan yahay aan jeclaan lahaa runtii sharcigaanayto wiigaanayto inuusan nala dhaafin laakiin sharcigaanayto jilbaha aan u dhigano. kulanka senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo dheeraaday ayaa waxaa dib loo isugu soo laabtay akhrinta 3aad hindi sharciyeedka batroolka iyadoona ugu dambeyntii xubnaha senatarada aqalka sare sharcigani ay meel mariyeen.
waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. waa 24 ogolaatay iyo 4 diiday cid ka aamustayna ma jirto. wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ugu mahadceliyay xubnaha senatarada aqalka sare ee sharcigani meelmariyay. la sugayay waan sugaynay in outcome-ka uu maanta saan noqdo. alxamdulillah ilaahay waa noo fududeeyay. waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa juhdiga aad samayseen, dadaalka aad ka qabateen iyo fikirkii lagu raacay aqalka golaha shacabka inuu ku raaco golaha aqalka sare inuu ansixiyo sharcigan batroolka. sharcigan batroolka wuxuu maanta asaas u yahay safar dheer oo ay Soomaaliya insha Allah gali doonto oo u gali doonto inay ka faa'iideysato kheyraadka dabiiciga Ilaahay ku manaysay. sharcigani ay meel mariyeen xubnaha golaha aqalka sare ayaa la filayaa in loo gudbiyo madaxweynaha Soomaaliya si uu u saxiixo isla markaana sharcigu u noqdo mid dhaqan galay. Abdiraxmaan Waabir, warbaahinta Daljir, Muqdisho.